وأيدين صوتوا بايا ويا أيدين شرح إن شاء الله وحي سؤال قبطان معناها وإسبربردك النلش الدوية هي تن آخره معناها النلش الدوية وح وقابا marka la barbar dhigo tan aakhiro qofku wuxuu noolaan karaa 100 sano oo kaliya haddii ilaahay cimri siiyo oo caafimaad siiyo oo wax walba loo dhammaystiro sidoo rabo loo yeelo qofku noolaan karaa 100 sano kadib ma noolaan karo qofka marka la barbar dhigo nolosha adduunyada tan hadda ku noolahay waa wax aad u yar ayaa marka la barbar dhigo tan aakhiro sababtoo ah nolosha aakhiro meel ku dhamaanaysa male sidaa darteed ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qofka caqliga badan waa qofka nafsadiisa xisaabiyo una diyaar garoobo geerida kadib markuu dhinto kadib wuxuu la kulmi doono iyo qiyaamaha u diyaar garoobo qofka nacaska ana waa qofka hawadiisa iska raaco oo nafsadiisa waxay jeceshahay iska sameeyo salaad macnaha tusaalahan salaadu ka tagaya waalidkiisu caasi ku noqonaya khamradu cabaya waxyaabaha khaladu samaynaya saaxiib xun xun yeelanaya qofkaasi waa qof xun marka hawadiisu iska ilaah ka dhigtay hawadiisu raacaya haddana ilaahay wuu ka rajeynayaa wax wanaagsan asagoo waxaasoo dhan samaynaya khaladaadkaasoo dhan buu haddana wuxuu ku leeyahay rajo fiican macnaha ilaahay ka qaba macnaha waxaad arkaysaa qof aan salaad tukanaynin markaad salaada tuka dhahdo wuxuu ku dhihi adiga ma aakhiraad nooga timid ma jannada iyo naartaad haysaa saasoo kale camal marka dadkaasoo kale waa dad xun saasuu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam halkan qisadan waxay ku saabsan tahay gabadhii nabiga sallallahu alayhi wasallam la dhihi jiray Faatimatu binti Rasuulillah ciyaalka nabiga waa idin baray hadda ka hor waa idin sheegay magacyadooda 7 ay ahaayeen waa idin sheegay waa idin weydiiyey haddana waa idin tusi doonaa insha Allah marka gabar kamid ah gabdhihii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la dhihi jiray Faatimatu binti Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam markuu nabiga xanuunsanaa xanuunkii uu geeriyoonayay soo xanuunsan ay u timid kadib way dul fariisatay aabaheedu xanuunsan dhigtu wax u saaray way uysay kadib haddana mar labaad dhigta u saaray haddana wax kale u sheegay haddana way qososhay way farxaday muddo kadib markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam geeriyooday oo nabiga la aasay oo muddo ka soo wareegtay la weydiiyay waxa la dhahay maalinkaas aabaha xanuunsanaa dhigta ku saaray wax waad uysay markii hore markii dambena waad farxday maxaad ka waday wuxuu ku sheegay markii hore maxaad uysay markii dambena maxaad u farxday waxay tiri markii hore wuxuu ugu dhahay xanuunkan aan xanuunsanahay aaba kama kici doono waa u dhiman doonaa markaas waxay tiri waan ooyey maadaama aabahay iyo markaasi aan waynayo haddana dhegtu ii saaray wuxuu ugu dhahay tiri adiga haddana iga soo daba dhimanayo qofkii ugu xigi doono adiga wax yar kadib adigana soo dhiman doontaa waad iga daba imaanaysaa marka waan farxay tiri marka halkaa qisadaasi waxaa laga qaadanayaa Faatima waa gabar yar waxay ku faraxsan tahay inay dhimato fiirso inay geeriyooto ku faraxsan tahay hadda qofkii la dhaho waad dhimanaysaa ma farxaya idman haddii la dhaho berri waad dhimanaysaa ma farxaysaa ma farxaysid laakiin Faatima binti Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam gabadhii nabiga markii la dhahay waad soo dhimanaysaa way farxday maxay farxday waxay ogtahay aabaheed inay jannada ugu daba tagaysay ogtahay waxay ogtahay adduunyada nolosheeda inay tahay wax aad u gaaban macna aan lahayn marka la barbar dhigo aakhiro marka dadka wanaagsan sida nabiga oo kale sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii iyo nabiga caruurtiisii iyo dadkoon wanaagsan oo dhan adduunyada waxay u arkaan wax qiimo aan lahayn oo aad u yar laakiin dadka gaalada waxay u arkaan adduunyada wax qiimo badan ay u arkaan marka qofka mu'minka ama muslimka wanaagsan adduunyada wuxuu arkaa meel yar oo imtixaan ah oo laga gudbayo oo biri ka maalina waxa la tagayaa qiyaamo aakhira la tagayaa aakhira marka la tagana nolosha cusbeed ee runteeda dhabteedan dhamaanaynin qofku uu noolaanayo billion sano wax ka badan weligiis uu dhimanayninba la tagayaa marka waxa fiican intaad u diyaar galoobi lahayd ama aad ku mashquul lahayd nolol yar oo kooban qofka inuu aakhirada xoog ka saaro adduunyadana qofku inuu shaqaysto waa okay laakiin aakhira inuusan halmaamin qofka oo ah nolosha saxda iyo meesha loo socdo ugu dambeynta okay halkan waxaa idinku tusayaa khariirad ama road map oo macnaha nolosha qofka bini'aadamka markaad dhalato xukumaa yaraa lagu soo qabanayaa adoo yar oo miskiin maqaaq waad oynaysaa okay waa lagu soo qabanayaa xukumaankaasaa lagu qabanayaa caanaha afka lagu saarayaa ama biyo ama wax saasoo kale camal haye waxyar kadib waxoogaa waad soo weynaanaysaa boorsaa dhabarka lagu saaraya waxaad aadaysaa meesha oo muxuu ahaa naasiriga
ama baarnaagaha ama meesha ciyaalka lagu xanaaneeyo aad tegaysaa kadibna waxaad sii bilaabaysaa dugsi hoose first class aad sii bilaabaysaa kasoo baxaysaa waxaad tegaysaa hoy school ama high school aad tegaysaa ama vidro going waxaa idinka dhahdaan ma aqaano aad tegaysaa iskuulka markaa haddana dhamaysid waxaad aadaysaa jaamacad jaamacadda markaad tagtid university maxaa idinka maxaa dhahdaan universiteeda tegaysaa koofiyaddaas sira madaxa lagu saaraya waad qalin jebinaysaa markaa qalin jebiso warqad yaraa lagu siinaya u fiirso marka ay yareed cunug yaroo tacbaan ahayd maskiin ah kaadida waa lagu kaadisiinaa musqush waa lagu geynaa waa lagu qabaynaa maanta dhan waa oynaysaa maskiinaa tahay tacbaan haddana iskuulka markaad tegaysid ama baarnaagaha ama meesha naasiriga subax walba marka oo boorsada garabka dhabarka lagu saarayo waad oynaysaa ciriiri badan iyo dhib aad dareemaysaa waa mashquul iskuulka markaa bilowda saas oo kale jaamacadda markaad tagtid imtixaanada iyo waxaa gelaysid madaxa ku xanuunaya adiga dhan rafaad iyo daal iyo tacbaan iyo fikir iyo wareer okay lacag badan ma haysatid marka kadib waxaad tegaysaa warqadda shahaadada kasoo qaadatay waxaad la tegaysaa halkan okay waxaad raadsanaysaa shaqo idma waata halkan fadhido shaqay raadsanaysaa shaqaan rabaa weli miskiin waayaya waad sometimes miskiinta lacag ma haysato way soo dadaashay maalinkay dhalatay ilaa hadda wax soo baranaysay madaxaa soo xanuunay hadda waxay rabtaa inay shaqaysato lacag shaqaysato lacag shaqada aa codsatay dad badanaa kula codsanaya adiga keligaa maaha waxaan oo dhan shaqay rabaan dadkaan dhan shaqay rabaan kadib adiga kasoo qaadba ilaahay ku macnaha nasiibkaagaa wanaagsanaaday shaqadaa lagu siiyey marka adiga dadkaan dhan lagaala soo dhexbaxay keligaa lagu soo doortay shaqadii qaadatay okay shaqadeedii lagu siiyey haddana hawsha ma dhammaanin xoogaad farxaysaa mishaarkii horreeya kusoo dhacayo lacagaa kusoo dhacayso waxaa lagu soo dirayaa lacag oo 20 kun camal oo karoon ama 30 kun oo karoon camal lagu soo dirayaa waad farxaysaa waxoogaa laakiin weli waxaa ku jirtaa gumaysi sababtoo qofkan u shaqaynaysaa kule qofkaad u shaqaynaysaa kule meel ma aadi kartid haddaad meel aadayso waxaad dhahaysaa fasaxaan rabaa haddaad rabtid hooyada inaad soo booqatid hooyada inaad soo booqdaan rabaa hadduu rabo kuu diidaya wuxuu ku leeyahay now haddaad baxdid shaqadan kaa ceyrinaya weli mashquula ku jirtaa waxoogaa adiga lacagaa heshay waa yar farxaysaa markaasi gabar iyo wiil waxaa tahayba waa guursanaysaa markaad guursatid kow ciyaal la dhalaysaa haddana mashquul kow aad soo bilaabaysaa mashquul aad soo bilaabaysaa lambar 1 aad soo bilaabaysaa meesha koowaad sababtoo ah ilmihii inaad baarnaagaha geyso waaye ama naasiriga aad geysid wiilkan yar in iskoolka la geeyo rabaa gabadha in la geeyo waxay rabtaa jaamacadda la geeyo baabuur lagu qaado shaqaad bilaabaysaa laakiin hooyaa noqotay aabana waa noqotay mashquul ciyaalkaa ka fikiraysaa madaxa ku xanuunaya ciyaalka waxay cuni lahaayeen meeshay seexan lahaayeen siday wax u baran lahaayeen caafimaadkooda akhlaaqdooda wixii ka shaqaynaysaa mashquulaa bilaabaysaa sidaa mashquulka ugu jirtid arkaysaa laba indhooda kaa soo haraya laba indhooda waa weyn waa duqobaysaa arkaysaa usaasaa qaadanaysaa waxaa noqonaysaa old macnaha gamela noqonaysaa very old aa noqonaysaa duq aa noqonaysaa ayeeyaa noqonaysaa ama awowaa noqonaysaa miskiinaa noqonaysaa oo fiirsada marka annaga gaalada maxaan ku kala duwannahay gaalada hadafkooda markay dhashaan waa intaas halkaas ku egyahay khalaas xataa ciyaal inay dhalaan ma rabaan halkaas ku egyahay bes way soo dhasheen waxay ka fikirayaan inay shaqo helaan way shaqaystaan bes wax ka dambeeya male nolosha halkaas ay ga dhamaatay aakhira meel aadayaan ma garanayaan sababtoo waa gaalo laakiin annaga lamid ma nihin annaga waxaan rabnaa markaan lacag helno haddana inaan qoys abuurno ciyaal inaan dhalno maasha allah ciyaalkaas inaan quraan barno aakhira ay noo soo duceeyaan kadibna marka ayeeye noqoto ama awowe aad noqoto ciyaalka awowe aad u ahayd ama ayeeye aad u ahayd ama adiga aad dhashay inay ku caawiyaan baad doonaysaa okay gaalada hadafkooda halkaas ku haray hadaf ma taqaanaan mool ma taqaanaan meesha loo socdo moolka halkaas ku dhamaaday laakiin qofka muslimka hadafkiisa weli ma dhamaanin okay waad gabowday isla markiiba waxaa lagu geyn weli maad nasan ya even xataa adoo musline weli maad nasan soo rafaadsaneed waad soo duqowday oo miskiina noqotay haddana wax u baahanta wax ku caawiyo adiga wax u baahan macnaha ku caawiyo u baahan waxaa leedahay yaa biyo isiiyaa yaa caana isiiyaa meelaa seexdayaa isiiyaa isqushiyaa igeeyaa yaa iisoo qabeeya miskiina noqonaysaa okay maalinka dambe khalaas masaajidka janaazada lagu tukanayaa halkaasa lagu geynaya waa dhamaatay marka maxaa ku anfacayo marka waa dhamaatay adduunyada noloshii 100 sano soo nooleed oo waqti kooban maxaa ku anfacayo hadda qabriga marka lagu geeyo wixii ka dambeeyo lacag ma qaadan kartid wax ma ku anfacayso ciyaalka aad dhashay ma ku anfacayaan waxaad soo baratay wax ma ku anfacayo jaamacaddii aad kasoo baxday iyo aad soo dhamaysay iyo nothing waxaasoo dhan waxba maaha jaamacadda soo dhamaysay shahaadada kasoo qaatay waxaasoo dhan ma shaqaynayaan maxaa shaqaynaya oo ku anfacayo maanta waxaa ku anfacayo salaadii aad tukanaysay qur-aanka aad soo baranaysay
hooyo baarinimadii aad hooyada iyo aabaha u samaynaysay wixii wanaagsanaa dadkii aad soo caawinaysay ixsaanka aad soo samaynaysay waxaasaa ku caawinay iyo akhlaaqdii wanaagsaneed iyo inaad qof wanaagsaneed markaas yaa ku caawinayso laakiin lacag iyo jaamacadan soo dhameeyey iyo intaan kasoo baxay iyo taajiraan ahaa iyo dahabaan haysan jiray iyo waxaas oo dhan ku anfacayaan nothing okay waxaa jiro marka qiyaama maalin la dhaho qiyaamo maqasheen ma taqaanaan qiyaamo qiyaamo way dhici doontaa qiyaamo way dhici doontaa waxay kamid tahay 6 tiir ee iimaanka qofka muslimka ay kamid tahay marka adduunka dhinaca gadoomi doona catastrophe wax loo bam wax walba way baaba'ayaan oo fiirsada qiyaamada waxay kamid tahay 6 tiir ee macnaha iimaanka qofka muslimka number 1 qofka muslimka waxa laga rabaa ilaahay inuu rumeeyo number 2 ilaahay malaa'igtiisa inuu rumayso number 3 ilaahay kutubtiisa inuu rumayso oo quraanku kamid yahay number 4 inaad rumaysid ilaahay rasuushii soo diray oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu kamid yahay inaad rumayso inaad rumaysid maalinka qiyaamaha the judgment date macnaha the date of judgment macnaha maalinka la isxisaabin doono maalinka qiyaamaha inaad rumaysid kamid ah iyo qadarta alle inaad rumaysid qadaha iyo qadarta alle okay marka qiyaamaha waa inaad barataan waxay kamid tahay arkaanta iimaanka muslimka arkaanul iimaani 6 wahiya an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir mataqana yawmil aakhir mataqana yawmil qiyaamah iyo yawmil aakhir waa isku mid okay qiyaamaha soo dhacaya marka qaabku qiyaamaha u dhacayaan ku sheegaya baalkan meesha yaala waxa la dhahaa buun mataqana afka la saaraa marka waxaa jiro malag la dhaho israafiil la dhaho buunkan uu yeerin doonaa buunka yeeriyo adduunyada sanay noqonaysaa way baaba'aysaa cirka wuu soo burburayaa dhulka wuu burburayaa dhirta way burburaysaa noolaha oo dhan wixii ilaahay ka soo haray makhluuqa oo dhan nafta ka wada baxayso badda waxay noqonaysaa dab bay isu bedelaysaa badda hadda soo biyo ma bad ma taqaanaan badaha oo dhan waxay noqonayaan dab camal ay noqonayaan wal baxril masjuur ina cadaab rabbi saas oo kale marka biyay wixii dhan baa baaba'ayo halkaa waxaa ka bilowday waxaa ku baaba'ay ama ku dhamaaday adduunyadii hadda aan ku noolayn annaga waxaa bilaabatay adduunyo cusub baa bilaabanayso okay buun koowaad waaye kadib waxaa la afuufaya buunkii labaad laba buunaa jirto kan waxaa la dhahaa wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah ثم نفخ فيه أخرى وحلا فوفا بونك اللبات فإذا هم قيام ينظرون وابا قيامي ذات قيامه تاريخ بونك اللبات مركل أفوفو وحا قبورها كصباحيو لغسوا بالله والنبي آدم إلا حد قفكي قدام بي أدوية أي بنتي حال مرت صباحيا قبورها لغسوا بحيو قف والبا سو ذاتكو إسقرانا وليس يقانا قالك عرى مركز يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته قف والبا قف كلو كعرى هذه هو يوك عرى سوى عسلها ما يحكوه شيء magacaas ku hooyada oo maanta wax kugu sheegto ka carreysa hooyo ka carreysa aabo ka carreeya qof dadka way kala carreeyaan okay bunkii labaad qiyaamaha laga soo dadku way soo dhaqaaqeen waxa la soo aaday qiyaamihii macnaha meesha la isku xisaabinaya la soo aaday okay maalinkaas waxa la dhahaa qiyaama la dhahaa marka qiyaama la dhahaa maalinkaas meesha waa la soo aaday maxaa dhacaya marka waxa dhacayo waa la isxisaabinaya qof walba kitaabkiisa la siinaya qofkii kitaabkiisa midigta laga siiyo wuu liibaanay qofkii bidixda laga siiyana wuu khasaaray ama man utiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ila ahlihi masruura وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا marka qofkii kitaabkiisa midigta laga siiyo wuu farxayaa qofkii gacanta bidixda laga siiyo wuu isku naxayaa kadib waa la isxisaabinayaa maalinkaasi waxba lama khiyaani karo ilaahay baa iyo malaa'igtiisa waa cadaalad waxba lama khaldi karo wax walbood sheegto waxaa kugu markhaati kacaya afkaaga gacmahaaga jirkaaga carabkaaga wax kasta dhulka zamanka habeenkii iyo maalintaa markhaati kacayo waxay ku leeyihiin maalinkaa waxaasuu sameeyey afka wuxuu ku dhihi afka maalinkaas been buu igu sheegay ama wax xaaraan igu cunay gacanta wuxuu ku dhihi wax qalad igu sameeyey jirkaaga dhuna kaa markhaati kacayo waxba lama khaldi karo xisaabta waa dhacayso nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay maalinkaasi waxaa jirto duca aan ummadayda u dibdhigay oo aan ugu talagalay inaan ugu shafeeco qaado maalinkaas macnaha dhibaatada ay jirto qiyaamaha
قف كستا أو حدها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وكلها قف كستا أو عن قلبي يسوح شركة كجرين أو لا إله إلا الله محمد رسول الله دهي إن شاء الله شفاعة ذا وهل دونا أيها النبي صلى الله عليه وسلم سأدرت شركة وحن إلهي نقولها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي وقولها فالذنب كستا لكن شركة ما ضاف مركز سأدرت شركة الإسك إلهيه شركة وحياة بدن وصوك على مركز ما كلية إن الله إله كلا جرو بس كلية ما شيخ إن الدرس عتيد وأترى شيخ بلا وحي سينا أما وحي علنا وحي كمتها شركة وح إلهي وحران تنمي إن حالي ساتا وحي كمتها شركة نقنسا مركز شفاعة النبي dadka ilaahay ugu talagalay baa helaya maalinkaas kadib waxaa halkaas meel dar oo biyo laga cabo oo biyo laga soo dhaamiyay wabiga la dhaho Kawthar oo ku yaala jannada uu iska leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inna a'taynaka al-Kawthar wabigaas biyo laga soo dhaamiyay waxaa cabaya dadka ilaahay ugu talagalay baa nasiib u yeelanaya inay cabaan kadib waxaa la siinayaa tigidhka la siinayaa tigidh mataqaanaan shahaado warqad qof walba wuxuu mutaystay meeshu aadayo macnaha tigidhka lagu jiraya hadda hada aadaysid muxuu ahaa Stockholm hada aadaysid magaalada centerka basa raacaysa tigidha lagu jiraya macnaha meesha u socotid taqaana soo okay hada aadaysid Soomaaliya Muqdisho tigidha jaranaysa meesha u socotid taqaana xamar u socotaa saas oo kale waxa lagu jiraya tigidhkaaga waxa lagu leeyahay dhaqaaj marka maxaa dhacay marka tigidhka marka lagu jaro waxa la aadayaa jidka siraad ala maraya marka jidka siraad waa wada dhuuban oo aad u dhib badan oo qalqalloocan waxay dul maraysaa jahannamo waa la dul maraya qof kasta ama muslim ah ama gaal ah jahannamo dusheeda la maraya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya waa go'aan macnaha dhacay oo ilaahay uu go'aamiyay in la dul maro thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya ilaahay wuxuu dhahay marka kadib waxaan badbaadinaynaa dadka mu'miniinta badbaadinaynaa way ka gudbayaan dadka gaaladana halkaas ay ku daadanayaan halkaas marka sidaas u yaala macnaha jidka siraad dadka muslimiinta way ka gudbayaan dadka gaaladana way ku daadanayaan dadka muslimiinta laftirkooda waxa jiro qofba nooc ku maraya qof wuxuu ku maraya sida oo dabeesha oo kale sida qof wuxuu ku maraya sida diyaarad oo kale qof sida baabuur oo kale qof sida faras oo kale qof sida dameer oo kale qof sida qof orday oo kale qof sida qof iska socdo oo kale qof bas sidoo camalkiisa yahay macna loo kala wanaagsan yahay qof baa soo gurguurinaya ku marayo qof baa ku dhacayo hadana ka soo baxay hadana ku dhacayo oo marka kadib ka baxayo qof wuu ku haraya meesha ku dhacaya muddo kadib ilaahay ka soo bixinaya laakiin qof kasta oo ku dhinto asagoo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah jannada uu galaya wallahu macna waa garanti laakiin waa macquul in lagu soo ciqaabo cadaabka uu soo maro gaalada halkaas ku haraysa خلاص dadka muslimiintana jannada ay gudbayaan jannada aadayaan ilaahay ma dulminin dadka laba la noqday dadna cadaabkay galeen dadna jannada ay galeen خلاص way dhamaatay sheekadu way dhamaatay muranki iyo waa dhamaaday adduunyo waxa bilaabatay nolol cusub oo dhamaanayna weligeed dadna waxay ku waarayaan naarta dadna jannada ay ku waarayaan ilaahay ma dulminin marka dadka oo jannada naarta galay ilaahay ma dulminin iyaga isdulmiyay marka intaasan ku jijinina إن شاء الله هو يا إيمان معناه إنه يسوي حكا إن شاء الله